السلام عليكم صاحبي soo dhawaada kuna soo dhawaada barnaamijkeena falanqaynta ciyaaraha qodobada barnaamijkeena aad ku maqli doontaan waxa kamid ah Michael Carrick oo fariin markaasi fariin naxdin leh ka helay kooxda United haye Barcelona oo xaqiijisay laba kamid ciyaartooydooda muhiimka oo markaasi dhaawacan arma meel loo soo marayo horta Barcelona ayaan taan dhaawac juuc wax la sheegayeen ama meel loo soo marayo kooxdan sidoo kale United iyadana waxay diiday Rashford inay markaasi ka iibiso waxa leeyahay Rashford iska soo noqo walaal waxa sidoo kale inta ku maqli doontaa kooxda Tottenham oo ku kala baxday macallin Thomas Franke oo cayrisay shaqada laga diray macallinkii markaasi kooxda Tottenham Real Madridna mar kale inta waxay ku kacaysaa macallinkii haatan Alvaro Arbeloa waxa leeyahay ciyaartooyda qaar wayba ka godoodeen Chelsea dhaawaca soo galay Real Madrid sidoo kale into laba rikoor oo xilli ciyaareedkan ay markaasi dhigtay sidoo kale intana dhaawac kale into Real soo galay Balmer oo marka gaari kara rikoor uu hore u dhigay Frank Lampard Joy Pedro oo markaasi sameynaya taariikh kadib kulankii xalayto كلوب oo soo dhawaanaya kooxda Real Madrid heshiiska Salah oo qarka ugu saaraya Sacuudiga qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku maqli doontaa iyo ninkii timaha badnaa oo waxa la yiri walaal iska sii joogo waxa la yiri tintaada sidaada ku sii ahaato shan kulan oo kale inta haysata shantan kulan oo ku soo socda markaas macalinka yaas leedahay saaxiib ee la soo dhawaada hadii aad tahay saaxiib horeyta nolol joogay like iyo share markaas noogu dadaal hadii aad tahay saaxiib nagu cusubna subscribe ka markaas noo saar aan ku bilownay tababaraha kooxda United macalinka Carrick oo ku meel gaarka waxa loo sheegayaa siyaabaha ay u baahan yihiin macallimiinta ay markaas u baahan yihiin kooxda kubadda cagta ee Manchester United macalinka ay u baahan tahay ayaa si degdeg markaasi loogu sheegay waxa la yiri hadii aan rabno tababaraha aan magacaabanayno waa markaas waa inuu tababare dhameystiran u noqdaa oo aan markaas ahayn tababare hadirtan soo qabtay waxa rabnaa uu leeyahay waxay rabnaa way leeyihiin kooxda waxay doonaysaa tababare way aragnimo leh oo xaqiijin kara guulihiisa shakhsi adag oo awood kula tacaali kala cadaadiska Old Trafford barabnaa buu leeyahay hadii Carrick uu ka hogaamiyo kooxda xitaa Champions League inuu soo baxdo fursadii uu joogitaankiisa waxa way yartahay baa lagu leeyahay oo wali uma badna inuu markaan sii ahaan karo waa Carrick xalayto la burji jabiyay waxa uu maleeyahay ninkan hadalkan uu soo haray hadalkan ayuu helay bay la tahay tanaaba dhibaatada uu keentay waxa la yiri aragti fog iyo sidoo kale into waa in la lahaada adeeg iyo waay aragnimo Carrickna waa ogtahay kooxda Middlesbrough iyo uu ka shaqeynayo waay aragnimo fog markaasi ma laha waatina xalayta la soo afjaray kulamadii afarta ahayd ay badanaysay xalayta shanbay rabeen inay ka dhigaano ninkii madaxdaashka ay ka bedelaan xalayta madaxdaashka xitaa Leif uu soo furtay oo asxaabtiisa u soo yeerayo isaga xitaa dan ugu jirin in Man United badasho kulanka shanaad oo ay caanimadiisa meesha ku dhiman lahayd laakiin markale inta kulamo kale inta oo shana ayaa markaas ku soo dhow Manchester United Everton oo ay u aadaysa away Crystal Palace oo gurigeeda uga imaanaysa Newcastle oo sidoo kale inta u tagayso Aston Villa oo sidoo kale inta gurigeeda la aadayo Bournemouth oo markaasi iyaduna away ah kulamadan yadis leedahay marka haddana shanta kulamada ama laga heli karaa mise madaxdaashka wali waxa uu si ahaan doona nin markaasi meeshiisa sii jooga wali kala sareynta horyaalka xilli ciyaareedkan qaabkan uu jirtaayo waxba markaasi kama isma bedelin inkastoo kooxda Manchester City oo caawa ciyaaraysa iyaduna ay horyaalka ka dhigi karto 3 dhibcood oo qura ay ka dhigi karto markay kulankan caawa ay markaasi ciyaarayso hadhanka kale isla wararkaas Manchester hadii aan hal mar si wada raacino wararka Manchester ku saabsan waxa uu leeyahay ninkii Rashford waxa loo sheegay inaan qiimo hoose lagu iibinaynin kooxda Camp Nou waxay rabtaa lacagta 30 milyan ee ciyaaryahankan la hordhigay inay hoos u dhigaan oo ay gaarsiiyaan ilaa 20 milyan ilaa 25 milyan inay gaarsiiyaan ay markaas rabaan laakiin kooxda United waxay leedahay inaanan markanaba hoos looga dhigaynin qiimaha 30 waa qiimihii ugu macquulsanaa ee linkan lagu fasixi karo ay markaas leeyihiin qiimahaas qiimaan ahayna ku fasixi mayno ay markaas leedahay kooxda Manchester United isla wararka Barcelona hadii aan gudaha u sii joogno waxa lagu leeyahay nimankii Barcelona dhibaato dhaawaca kaleento ayaa soo galay Barcelona waxay si rasmi ah u xaqiijisay in Rashford uu seegi doono lugta hore ee semifinalka Copa del Rey Atletico Madrid ay la ciyaarayaan habeen dambe ayaa markaas ninkan uu seeyay dhaawac jilibka ayaa soo gaaray ninkan uu ka baxaya ayaa leeyahay waxa looga horeyta inuu u maqnaa Rafinha oo lugta hore ee semifinalka Copa del Rey uu seegayo markale intana Rashford ayaa markaas seegay ciyaaryahankan waa lagu baxsan jiray
jirayo mararka qaarkood caawin iyo waxaas laga heli jirayo laakiin ugu dambeyntii dhaawac ayuu ku seegayaa baa leeyahay kulankii ay la ciyaarayaan xirta markaas Diego Simeone dhanka kale isla wararka Barcelona waxa la leeyahay saddexdan weeraryahan ya reer Barcelona saddexdan weeraryahan yaa idinku fiican waxa la leeyahay Roberto Lewandowski uu ka baxayay kooxda xilli ciyaareedkan ayaa ugu dambaysa laakiin wararku waxay sheegayaan Harry Kane Dusan Vlahovic iyo Alvaro Julian Alvarez inay yihiin ciyaartoyda ay isha ku hayaan oo ay doonayaan markaasi in kooxda kubadda cagta Barcelona ay ku soo darto kooxdooda oo ay markaasi ka dhigto kuwa haatan u tartamaya afka hore ee weerarka kooxda macallin Cesc Fabregas xalayto waxa uu ka diray koobada Italia kooxda Napoli oo macallin Antonio Conte ayaa markaasi lagu kala baxayo Rio Real 6-7 kooxda Como ayaa ku badisay kadib markii 1-1 isla dhaafi waayay ciyaartii rasmiga ahayd kooxda kubadda cagta ee Como Cesc Fabregas ayaa markaasi ku kala baxay kooxda Napoli oo ka diray horyaalka dhanka kale haddii aan markaasi fiirino waxa ciyaartoydii kooxda Real Madrid ay soo jeesteen markaleento way soo jeesteen wararka ka soo baxay Spain waxay sheegayaan in qaar ka mid ah ciyaartoyda Madrid ay bilaabeen inay su'aalo ka keenaan go'aamada macalinka qaadanay inay su'aalo ka keeneen hadda markan waxa soo baxaysa hadalkii Xavi horeyto uu sheegay ee ahayd inta in la eg inaad ciyaartoyda aasiisaan mataqaanay mihnad kuma fiicna maamulkana kuma fiicna waa tii horeyto uu yiri Xavi Alonso wuxuu ka andacoonayay in go'aamada ugu adag iyo waliba qaadashada go'aamadaba ciyaartoyda gacanta loo galiyay oo Carlito oo sidoo kaleento uu maamuli jiray ciyaartoyda laakiin Alonso uu maamuli waayay wuxuuna u sheegay maamulka inay sab fiicneen in ciyaartoyda heerkaas la gaarsiiyo oo go'aamadaas la siiyo hadda wararka soo baxay ayaa sheegaya kooxdu inay haatanba ka gadoodsan tahay go'aamada uu qaadanaya macallin Alvaro Arbeloa ayaa loo sheegay inuu ku wajahayo wax looga yeero maamulida qolka labiska arimihii horeyto dhibaatada ugu noqnaa Alonso ugu noqnaa ayaa dib markaas ugu soo baxay kalsoonidii kooxda ayaa si lumi rabta taasi oo keenaysa in macalinka uu haatan markaasi uu heli waayo mihnadii looga baahnaayo mihnadiisi kooxda haatan ayaa lagu haystaa baa leeyahay waxa leeyahay kooxduba hadda gadood ay ka sameynaysaa macalinkan waxba laga yaabaa markaleeto isagaaba ninkan ku joogo ku meel gaare walaalayaal Real maxaa haysateen markan dadku waxay leeyihiin ciyaaraha qorqora waxa soo baxaysa hadalkii Xavi Alonso ee ahaa in mihnad weyn ciyaartoyda la siiyo macallinkana uusan waxba ahayn Tottenham waxay si rasmi ah u xaqiijisay inay kala tageen tababarahoodii Thomas Frank sida uu war-saxaafadeed ay markaasi soo saaray lagu sheegay biyaanka ka soo baxay ayaa lagu yiri kooxdu waxay go'aansatay isbedel in lagu sameeyo joogteynta tababaraha kooxda ragga Thomas Frankina waa la fasaxay maanta Frank ayaa loo magacaabay xilkan sanadii 25 iyadoo maamulka Spurs ay sheegeen waqtigaasi taageerad ku filan inay siinayaan macalinkan una dhisayaan mustaqbalka kooxda si kastaba natiijooyinka qaab ciyaareedka iyo go'aanada ayaa isbedel degdeg keenay taasi ugu dambeyntii kooxda Tottenham ay go'aansatay in macallin Thomas Frank laga ceeriyo kooxda oo Angry Bast Oglo oo uu ka bedelay booska ayaa markaas u raacaya wararka kale inta waxa kamid ah Chelsea ayaa waxay sheegtay in Marco Correa badnihi uu dhaawacmay waxa soo gaaray dhaawac kulankii xalayto Leeds United bedelan lagu sameeyay 2-2 ay la galeen macalinkan wuxuu sheegay in qasab ay ku ahayd in isaga ku bedelo Joral Hato laakiin ciyaar maskaxeed aysan ahayn waxa wuxuu leeyahay waan ku qasbanayn dhaawaca soo gaaray muruqu dhaawac ka sheeganayay saas daraadeed waa ku qasbanayno ninkan inaan bedelno ayaan ku qasbanayn ma ahayna wax taatika oo kale inta aan isticmaalaynay ma aha ayuu markaas leeyahay sidoo kale into kooxda Real Madrid waxay sidoo kale inta iyaguna ay markaasi samaysanayaan rikoorkaas oo ah inay dhaliyaan goolalka rogal celiska loo yaqaano ama counter attack loo yaqaano ku goolasha ugu dhaqsiyaha badan oo 7 gool ay dhalinayaan xilli ciyaareedkan Villarreal ayaa ka horeyso oo kaliya oo 8 gool ku dhalisay weerarada rogal celiska markaasi loo yaqaano sidoo kale goolasha la iska qayb qaato oo taabashada bobsiiska ana 17 gool ay markaasi leeyihiin oo ay ku dhalinayaan kadib guushii
labiyo waxba ahayd ay ka gaareen Valencia xadii la soo dhaafay oo Alvaro Carreras iyo Mbappe ay dhaliyeen waxa la siinayaa ciyaartoydan in ay markaasi ama kooxda Real Madrid skorkaasi xilli ciyaareedkan ay markaasi helayaan wararka Chelsea hadii aanu ku noqono waxa la leeyahay ninkii Cole Palmer aha waxa uu ku dhawaanayaa skor uu horeyto u haystay Thierry Henry aandahe Super Frank Lampard Henry ma soo marin Chelsea waxaan leeyahay markaasi Lampard skor uu horeyto u haystay ayuu gaari karaa John Terry daafici hore ee kooxda Chelsea waxa uu leeyahay halkan si joog walaalow kuna shaqeyso waxa tahay weeraryahanka ugu fiican gool dhalintana markaasi haysta ayo muuqaal uu soo dhigay TikTok ayuu kaga hadlay kadib hat-trick uu ka dhaliyay kooxda Wolves wuxuuna hadda soo gaaray 44 gool 84 kulan oo horyaalka Ingiriiska ah wuxuuna ugu hambalyeeynaya goolashaas uu dhalinayo wuxuuna soo gaaraya markaasi ciyaaryahanka 8aad ayuu soo gaaraya oo wuxuu leeyahay hadda 8 kaalinta 8aad ku jirta Costa kugu soo xiga oo aad dhaafi kartaa mar dhow Lampardna waa gaari kartaa Diego Costa Chelsea wuxuu u dhaliyay 52 gool oo Premier League ah Frank Lampard ayaa ugu badan 143 gool 447 gool Didier Drogba ayaa ku xiga 104 gool Hazard ayaa ku xiga 84 marka John Terry wuxuu leeyahay waa gaari kartaa halkaas taariikhdaasna waa sameyn kartaa adiga si joogo kooxda Chelsea qayb ka ahaw oo macnaha wuxuu ka hortagayaa hadaladii ayaantan meesha la isla dhexmarayay warbaahinta oo sheegaysay in ninkan uu magaalada Manchester jecel yahay oo uu ku biiri karo isla wararkaasi Chelsea weeraryahanka kooxdooda ee Joey Pedro ayaa markaasi qaatay markale intuu habeen kale oo taariikhiya kadib goolkii uu ka dhaliyay kooxda Leeds United waxaana goolkan uu markaasi si raacsaday كل كهر إنتانا نوح أكفورد يوليبا نتشي عايزن سببين إن ليدز يونايتد يدبعها وداعان سكستبا سيدا أي شيء تجريرة أوبتا أو أوروريس حقها جول كبدرو وحوليد أو كدلي ليدز وحكد جنتهاي إن أفريل لباتن سنجيركا ونقضي عياريهن كي أفراد برازيليانا إداليا 10 جول أما وحكبدن حل عياريد حريرة أو بريمير ليغا روبرتو فيرمينا ayaa sidaas hore u sameeyay sanadii 2015 16 iyo sidoo kale 18 19 Richarlison ayaa sidaas oo kale sameeyay micnaha 10 gool iyo wax ka badan dhalinaya sanadii 18 19 iyo 19 20 Matthias Cunha ayaana markaas sidoo kale intana sameynaya sanadii 23 24 iyo 25 Joey Pedrona waa ku soo biiraya kooxda kadib markii uu Chelsea kaga yimid kooxda Brighton wuxuuna noqonayaa markan ciyaaryahan kaleento afraad oo ka imaanaya Brazil oo qaadanaya isagana bandhig wanaagsan tan iyo markaasina waxa uu kamid noqday iftiinka kooxda Blues ee afka hore ee weerarka ka caawiyay FIFA Club World Cup ka sanadkii hore inay ku guuleysato Joey Pedro wuxuu rajeynayaa inuu sii wada bandhigiisa cajiibka ah marka ay Chelsea la ciyaarayso Hull City kulanka FA Cup ka jimcaha la ciyaari doona hadduu alla idmo wuxuu rabaa inuu sii wato oo hore uu sii socdo shabakada Isbaanishka ee loo yaqaan Defense Central waxay shaacisay tababaraha Jarmalka ee Jurgen Klopp uu dajiyay shuruudo uu ku aqbalayo tababarka Madrid laga bilaabo xagaaga soo socda hadii ay dhacdo inuu kooxda u go'aansato inuu fasaxdo Alvaro Arbeloa oo lagu bedelay isaga sida warbixintu ay sheegayso Klopp wuxuu dalbanayaa laba daafac oo dhexe laba ciyaaryahan qad dhexe iyo sidoo kale in dib loo soo celiyo ciyaaryahanka Brazilianka ee Endrick kuwaas oo dhamaantood kamid ah shuruudaha uu macalinkan kula wareegi karo kooxda Real Madrid waqti xaadirkan Arbeloa tababaraha kooxda Real Madrid marka laga eriyay Xavi Alonso hadda inuu mustaqbalka Arbeloa wuxuu ku xiran yahay natiijooyinka kooxda ay gaarto iyo koobabka ay markaasi qaado Klopp ayaa marar badan beeniyay wararka la xiriirinaya Real Madrid balse ma uusan meesha ka saarin suurtagalnimada inuu mustaqbalka ku hogaamiyo kooxda boqortooyada iyo waxaana la ogaaday in macalinkan haatanba Spain uu guri ka gatayo meel markaasi hal saac u jirta xirada tababarka ee kooxda Real Madrid ba oo ka gatayba markaasi guri taasi oo ka dhigaysa in Sassanto ay sii furan tahay xidiga kooxda Liverpool Mohamed Salah waxa uu muuqdaa inuu qarka u saaran yahay ka tagista kooxda Liverpool wuxuuna heshiis la sii gaaray Etihad waxa lagu leeyahay heshiiskan 50 ilaa 30 ayaa lagu qaadanayaayo lacag badanna ilaa ay gaaraysa 1.2 bilyan
ayaan markaasi ay noqonaysaa lacagaha isku kaashka ee sanadada uu joogayo intaas isku kaashka noqonaysaa waxaana lagu leeyahay wuxuu ka mid noqonayaa ciyaartooyda ugu mushaaraadka badan oo kooxdan markaan ay soo qaadanayso Etihad tan iyo markii uu Karim Benzema ka tagay hoos u dhac ayaa ku yimaaday kooxda tan iyo ku guuleysigeedii sanadkeedii hore ee horyaalka Sacuudiga laakiin waxay rabtaa inay dib u soo celiso dib u soo nooleyso kooxda waxay rabtaa inay ku guuleysato ciyaartooy badan oo halisa si ay markaas u gaarto guulo kaleeto Liverpoolna ayaantan dhibaato daba socoto waati looga inay laga badiyay waati looga Diego Jota geeridiisii waati looga Ibrahim Kanuta in abihiisu ku geeriyooday waati looga hadana Maxamed Salah in awoowihiisu geeriyooday hadana dhibaatooyin kale inta ayaa loo sii qorqoroyayo iskoor xun oo halisa ayba caaw halis ugu jirtaaba iskoorkaas muxuu yahay waxay noqon kartaa in 4 kulan oo isku xigta hal xilli ciyaareed ay barbaro la gasho koox ka soo dalacday heerka labaad macnaha kooxaha heerka labaad ka imaanaya in 4 kulan oo la ciyaareen ay barbaro la galaan macnaha waartii la ogaa Leeds United kaliya ay laba jeer la galeen markaan barbaro Sunderlandna waati la ogaa iyaduna oo heerka hoose ka imaatay inay barbaro la galeen tani waxay dhacday baa lagu leeyahay 1981 markaas ugu dambeysay inay arinkaani u dhacdo caawana Sunderland ay la ciyaarayaano hadii Breja ay la galaan waxay halis ugu jirtaa markan in ay laga badiyo oo kulamadaas markaasi ay skorkaasi dib u celiyaan waxaana jira kulamadan xiisaha leh Aston Villa waxay la ciyaari doontaa Brighton oo Aston Villa waxay rabtaa inay ku ordo Manchester United oo dib ugu soo dhawaatay laba dhibcood u jirta Crystal Palace iyo Burnley way balansan yihiin Man City Fulham ay la balansan tahay waxay rabtaa caawa in 3 dhibcood ay horyaalka ka soo dhigto Nottingham Forest iyo Wolves ay wada ciyaari doono iyaguna ay ku dagaalamaya sidii uu sii joogi lahaayeen horyaalka Sunderland iyo Liverpoolna waa 5 saac qadar 15 daqiiqo caawa la daawan doona Copa del Rey-gana Atletico Bilbao iyo Sociedad ayaa markaa la daawan doonaayo dhamaan kulamadaasi natiijooyinku ku dhamaadana barnaamijyadeena dambe ayaad ku maqli doontaa dooyba weynaydmo waxa lagu leeyahay ninka Thomas Franka markaan la ceeriyay waxa waaye macalinka guulo saas u badnayn markaas gaaray winning rate-kiisana waxa la geeyay baa lagu leeyahay ama uu gaarsiisna 21% 38 kulan oo uu hayay kooxda Tottenham waxa lagu leeyahay 13 kulan ayuu badiyay 11 kulan barbaro galay 14 kamidana waxa waaye guul darra soo gaartay baa lagu leeyahay ninkan oo dhamaan inta asaasayba ay u sameeysan tahay kooxdana wuxuu ka tagayaa isagoo ku dhameynaya ama ku haya kaalinta 16aad oo Tottenham kaalinta 16aad ay markaas ku jirta oo ka tagayaa baa lagu leeyahay waxa la leeyahay ninkii Lamine Yamal ahana wuxuu dhigayaa wacdaro taniya guuldaradii ka soo gaartay kooxda kubadda cagta ee Chelsea isagu wacdaro ayuu dhigayaayo 9 goolna waa dhaliyay 5na waa caawiyay dhanka kale markii uu wacdareeyay ninkii Stafio William isaha waati kulankii Chelsea Barcelona uu ku wacdareeyo oo goolna ka dhaliyay habeenkiina uu qasay moogtahay waxa lagu leeyahay markan taniya markaasna Stafio hal gool ayuu dhaliyay hal caawinna waa uu sameeyay oo macnaha Barcelona cuqubadeedii ayaa sii raacday baa lagu leeyahay ninkan waa Cristiano Ronaldo xitaa ciyaalkii gabadhiisii yareed ayuu markaas jimka gelinayaayo wuxuu leeyahay adoo yar isdhis ayuu markaas leeyahay adoo yar isdhis ayuu leeyahay hadda ama santiin saaxiibayaal hadii aad tahay saaxiib horeeto noola joogay like iyo share noogu dadaal hadii aad tahay saaxiib nagu cusubna subscribe noo saar wama santahay